Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Baydhabo ku gudoomiyay shirka Golaha Wasiirada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ka oo looga hadlay xoojinta qorshaha horumarineed ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sida adeegyada bulshada, amniga iyo xoreynta meelaha argagixisadu kaga sugan yihiin kuwa oo ku saleysan tubaha Koonfur Galbeed. Shirka Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Ra'iisul Wasaare Khayre ku weliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa lagu soo bandhigay qorshaha horumarineed ee Koonfur Galbeed iyo baahiyaha ka jira ay muhiimka tahay in wax laga qabto isla markaana qayb ka qaadanaya kamiro dhalinta higsiga bulshada Koonfur Galbeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed taa oo ku saleysan hadafyada dowladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo Golaha Wasiirada u sheegay in socdaalkiisa qayb ka tahay dhageysiga bulshada si loo helo fikir horumarineed ayaa qiray inay muhiim tahay wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hirgeliyo qorshayaasha horumarineed ee bulshada lagu gaarsiinayo amni hagaagsan, caafimaad, waxbarasho tayo leh. sababaha aan halkan u joognana waxay tahay dowladda sideedaba sharciga ugu weyn ay heli karto waa aqbalaadda ay ka hesho shacabkeeda. aqbalaadda shacabkeeda ay ka heshana waxay ku saleysan tahay adeegyada ay fuliso. adeegyada ay dowladdu fulisana waxaa fulinaysa heerka dowladeed ee ugu dhow shacabka. macnaheedu marka waxay tahay idinkaa shacabka u dhow, degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaada idinkaga sii dhow. maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojino inaan kasbano shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku kasban karnaa keliya inay ka dareemaan amnigooda, inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabta, bulsho aqoon leh lasoo saari karo, inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka. taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda Soomaaliyeed guud oo idinka aad qayb ka tihiin sida ay ula falgalayso shacabkeeda. annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaana la ka rabaa marka inaan hayno qorshooyin ku qotoma sida loo soo celin lahaa dowladnimada, taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocayaha ayaan sii karnaa bulshada Soomaaliyeed iyo sawir noocayaha ayaan ka bixin karnaa dowladnimada. dadka annaga u adeegna annaga sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayadii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa. kow, sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan Soomaaliyeed, iyo labo, waxa laga aamini karo dowladnimada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kormeeray qaar ka mid ah wasaaradaha iyo madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana howlwadeenada wasaaradahaasi ku xog wareystay hanaanka ay u shaqeeyaan in loogu adeego shacabka Koonfur Galbeed wuxuuna bogaadiyay waxqabadka muddadii uu xilka hayay madaxweyne Laftagareen. waxaa ka muuqata halkan nidaam dowladnimo oo bilaabmaya oo curdun ah sida Keenaba uu yahay, laakiin horumar baa ka muuqda marka loo barbar dhigo markii ugu dambeysay halkan. waa ugu mahad celinayaa madaxweynihiina, waxaan aaminsanahay shaqo fiican inuu hayo. waxaa kaloo aaminsanahay inuu yahay buundadii looga gudbi lahaa khilaafaadka iyo isqabqabsiga. aan aaminsanahay inuu yahay qof hadafkiisa ku saleysan yahay dadka Soomaaliyeed in la isu keeno. taasna waxay ila tahay inuu ka dhaxlay khibradda dheer uu leeyahay. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Baydhabo.